muuqaalkan ayaa wuxuu tilmaamayaa dadka waxa qarxiyo sharuudahay leeyihiin dib baan ka falaqayn doonaa ila fiirsada. I spoke to a CIA agent, former CIA agent, a couple months ago. He said, "This is the CIA plan. This is what we do. So we use a dumb Muslim. We'll get a dumb Muslim who's easily brainwashable, and we'll have them carry out an attack as a catalyst for us to go into war in Iran. And then, oh, this guy's This guy's an Iranian. There you go. Or a dumb Palestinian Christian like Sirhan, just throwing that. Yeah, exactly. Sorry, excuse me. Right, exactly. So we will use a patsy, and that will be the catalyst. Do you see what they did? Carrying out this attack. By the way, these accounts, as soon as we attacked the nuclear sites, almost immediately there were videos being surfaced and flooded on social media about ninkan wuxuu leeyahay saaxiibkii oo CIA-da u shaqeeyo ayaa 2 bilood ka hor wuxuu ii sheegay dadka waxa qarxiyo oo ay rabaan Mareykanka inay isticmaalaan markay rabaan inay wadan ku duulaan. dadka sharuudda ay leeyihiin waxa waaye qofku waa inuu yahay yiri qof doqon ah iyo qof la siri karo. qofka doqon adduunya waa la siri karaa. marka wuxuu yiri wadan markay rabaan inay ku duulaan qofkaas isticmaalaya suu meel u qarxiyo si ay u helaan sabab ee wadankaas ugu duulaan. marka qofku waa inuu yahay qof la siri karo, qof la qaldi karo, qof wax rabo laga dhaadhicin karo. sharuudahaas waa inuu buuxiyaa qofka la rabo inuu wax qarxiyo. marka qarxiyada aad arkaysid wadamadan oo aad aragteen ka dhacayo sababtaas ayuu ninkan sheegayaa. waxa kaloo ninkan uu tilmaamay waxa uu saaxiibkiisa u sheegay markii la rabo wadan in lagu duulo waxaa la sameynayaa sabab wadanka loogu duulo. sababtu maxay tahay? in qof la siri karo uu wax qarxiyo si loo dhaho ninkan waxbuu qarxiyey wadanka waa inaan ku duulnaa. marka intaas baan rabaa inaan idinla wadaago bilahi tawfiiq.